Sentensi fupi jumlada gaaban. Ingia darasa fasalka soo gal. Ingia darasa fasalka soo gal. Fungua dirisha. Fungua dirisha daaqada fur. Funga duka. Funga duka. Dukaanka xir. Mbona umenidanganya. Mbona umenidanganya. Mbona umenidanganya. Maxabeen igu sheegtay nipe dawa. Nipe dawa. Dawa isi darasa limejaa. Darasa limejaa. Fasalka u buuxa. limejaa waa u buuxa. Fasalka waa buuxsamay. Dawaati limevunjika. Kuraasti way jabtay. Liidaas waa mar hore. Limejaa u buuxsamay. Limevunjika uu jabay. Sentensi fupi jumlada gaaban. Fungua kitabu chako. Fungua kitabu chako. Buugaaga fur. Fungua waa fur. Kitabu chako buugaaga. Haddaba xir ha ku qaldin. Funga kitabu chako. Funga kitabu chako buugaaga xir. Ereyga funga waa xir number 2. number 3 sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Si fiican u dhageyso. Andika Kiswahili. Swahiliga qor laakiin waxa noo qoran andika hapa. Andika hapa halkan ku qor. Soma kwa sauti. Soma kwa sauti. Codka sare u qaad. Soma aqri kwa sauti. Cod dheer. Cod sare ku aqri. Jibu swali. Jibu swali. Jibu swali. Su'aasha ka jawaab. Jibu ka jawaab. Swali su'aasha. Simama uongee. Simama uongee. Istaag oo hadal. Simama istaag uongee hadal. Kaa kimya. Kaa kimya. Kaa kimya aamus. Kaa kimya aamus. Waxaa la macno ah yamaza. Yamaza aamus. Nimekuelewa. Nimekuelewa. Waa ku fahmay. Sijakuelewa. Sijakuelewa. Kuma fahmin. Waxaa la macno ah nimekufahamu. Nimekufahamu. Waa ku fahmay. Number 2 nimekufahamu. Waa ku fahmay. Sijakufahamu. Sijakufahamu. Kuma fahmin. Shuka gaari ka soo deg. Leeta kitambulisho kan sharcigaaga. Iska tartiibna u hadlaan ha ka sugin. Qofka labaad adiga markii isdejiye marka sawa afandi hay'ad taliya shika angalia kitambulisho ho sharcigayga fiiri. Unaenda wapi na unatoka wapi. Aan ku celiyo unaenda wapi xagee u socota na umetoka wapi xagee ka timid. Hasuun inuu ku kala saaro isku ka dara su'aalaha saa u naxdo. tartiib ugu jawaab marka ninaenda Garissa u socda. Nimetoka Nairobi aan ka imid. Unasafiri wapi xagee u safreysaan oo lagu weydiin karaa. Ninasafiri Garissa u safreeya. Unaenda kufanya nini Garissa. Maxaa ka soo qabanay Garissa. Maxaa ka doonay macna. Mimi ninaenda kutembelea. Anu waxa u socdaa booqasho. Kwa nini unaenda Garissa. Garissa maxaa u socotaa. Kwa nini unaenda Garissa. Garissa maxaa u socotaa. Ninaenda kuona familia yangu. Ninaenda kuona familia yangu. Waxaan soo arkaya qoyskayga. Ninaenda waxaan u aadayaa kuona inaan soo arko familia yangu qoyskayga. Umebeba nini maxaa wadataa. Nimebeba begi moja ama waxaan wataa hal boorso bas. Ulikata kitambulisho wapi. Sharciga xagee ka goosatay. Nilikata waxaan ka jartay madowgaashi meel la dhahayn ka jartay. Ulichukua kitambulisho wapi xagee sharciga ka qaadatay waa lagu dhigi karaa. Marka hore ulichukua kitambulisho wapi xagee sharciga ka soo qaadatay. Nilichukua kitambulisho kutoka madowgaashi waxaan ka soo qaatay kimaandaha madowgaashi meel la dhaho. Chukua waa qaadashadii katana waa jaristi. Ulichukua kitambulisho lini goorma sharciga soo qaadatay. Nilichukua kitambulisho mwaka 2025 sharciga waxa soo qaatay la shaqo ma qaar waxa lagu dhigi karaa ulichukua kitambulisho ulikata kitambulisho lini goorma jaratay sanadka la sheegay bas nilikata kitambulisho mwaka 2025 waxa maraya ulizaliwa wapi xagee ku dhalatay. Nilizaliwa Lagdera aan ku dhashay. Ulizaliwa lini goorma dhalatay. Nilizaliwa 2002 waxaan dhashay 2002 marka kibaanda leedahay su'aalahan ma aha qasab ma in hal mar lagu weydiiyo. Mid kamid ah lagu weydiin karaa. Adigu markasta aad dahdaata diyaar garow ku jirno. Adigu heegan ku jirno hasdihin maxaa la weydiin karaa. Leeta bas ma yaa xifdiya maya kulli wada diyaari. Sidoo kale salaamahan iska diyaari. Haddaad habaari bas taqaano waa dhiban tahay. Habaarigani mambo niaje salaanto dhan soo diyaari. Askari polisi iyo afande inta waa isku macno. Askari waa askari, police waa police, afandena waa taliya. Kuuliza sharia sharci weydiinta waxa ugu horeyso iko wapi sharia yako. Iko wapi sharia yako awa sharcigaaga. Leta kitambulisho chako. Leta kitambulisho ken sharcigaaga. Number 3 toa kitambulisho chako ama yako.
keen sharcigaaga laakiin labadooda ha isku isticmaalin Chako waa dhigi kartaa Yako waa dhigi kartaa qoraal ahaan waxa ku fiican Chako spoken markii la ku hadal luqad ku hadalkeedana Yako ku fiican toa kitambulisho Chako keen sharcigaaga Ingelia Kivi toa kitambulisho Yako waxa Kiswahiliga hadalka soo bixi sharcigaaga waxa u gudbaynaa number 4 wapi ID yako wapi ID yako aba sharcigaaga ID waa English ka timid identification card laga keeno waxa waa sharciga aqoonsiga nionyeshe kitambulisho sharciga tos number 5 number 6 uko na kitambulisho ma haysataa sharci number 7 umebeba kitambulisho sharci ma sidata ma wadata number 8 naweza kuona kitambulisho chako ma awooda inaan arko sharcigaaga naweza ma awooda kuona inaan arko kitambulisho chako sharcigaaga number 9 una kitambulisho sharci ma leedahay kitambulisho sharci una waxay ka timid ukona waa markii la soo gaabiyo ay number 10 u gudbiyaa shika kitambulisho kwa mkono sharciga gacanta ku qabso shika qabso kitambulisho sharciga kwa mkono gacanta sharciga ku qabso waa markii bridge laga dejinayo oo sharciga lagu leeyahay gacantaada ku sii qabso wada sheekaysi kidogo angalia nadhani hii nguo inakutosha vizuri angalia fiiri nadhani waxaan u maleynayaa hii nguo inakutosha vizuri ni si fiican ku leeyihiin B inanipendeza sana dada aad baan u jeclaystay uga helay B ni ngapi kwanza meeqa waa horta beecooda 1400 punguza bei tafadhali dada iga dham wax yar beeca fadlan sawa nitakupatia kwa 3000 waxaan kugu siinayaa 3500 hii hapa pesa taslimu wakana lacag kasha hii hapa wa hiya itis the cash money watana lacag kashka ninashukuru mahadsanid ama ku mahadinaya unahitaji kitu kingine wax kale ma u baahanta ama kitu kingine wax kale ma u baahanta nina mtoto mdogo waxaan leeyahay hal cunugo yar kuna ungoza watoto carruur miyalan kuna matala ama miyalan za watoto ungoza watoto dharka carruurta ndio hizi hapa hawa kuwana hizi hapa wakuwana igo jamaa kwa watoto wadogo dharka carruurta ninatafuta suruali na kaptura waxaan raadinayaa surwaal iyo buume ninatafuta suruali na kaptura waxaan raadinayaa surwaal iyo buume surwaali ni 800 surwaalku waa 800 oo ku carruurta laga hadlayaa sawa na ichukua pia haya asna waan qaadanaya ninashukuru waan kaaga mahad celinayaa karibu tena marka la soo dhawow naweza kulipa kwa M-Pesa ma ku bixin karaa ndio agent numberka waxa waaye 2468 English ku sheegi kartaa agent number waxa number laga la soo baxo lacagaha Kenya